nalkii boxka waa ku xiray kadibna softiga baalka oo iftiinka oo kasoo baxay iga celinayay ayaan ku sii xiray hadda hal xab ayaan isticmaalayaa midkaas kale tan waxaa loogu talagalay kamerada inaad kor aad ugu xiratay ayaa loogu talagalay watahay akhyaarta mar kale isku soo noqdo wanaagsan haddii aad tahay qof duuba muuqaalada YouTube-ka ama muuqaalada heesaha ama muuqaalada kale taba waxaan ku hayaa barnaamij aad u muhiim ah kaasi oo aad ku qarxin doontid muuqaaladaada haddii aad tahay videographer waxaad u baahan tahay laba midkood wuxuu yahay in aad haysatid microphone cod fasiixa ku duubo dadka daawanaya muuqaaladaada si ay cod nadiif ah ay u dhageystaan waxaad kale u baahan tahay in aad haysatid lighting-kana sidaan ogsoonahay wuxuu u kala baxaa laba qaybood midna waa artificial light midna waa natural light haddii aad banaanka joogtid aad duubaysid waxaad haysataa natural light kaasi oo markaasna aad ku base gareynaysid kameradaada hadba cimilada aad joogtid haddii ay tahay mid qorax ah ama haddii ay tahay mid daruur ah ama haddii ay tahay mid oo roobaad ah intaba aad ku programinaysid kameradaada waxaa kaloo jiro mid lagu magacaabo artificial light kaasi oo haddii aad guryaha aad ku duubaysid oo kale riwaayad ama YouTube-ka videoyaashiisa ama waxyaabo kale dad guryaha ku duubanaysid oo kale waxaad u baahan tahay inaad haysatid artificial light muxuu yahay waxaan dalbay saujidin baakadan aadka u weyn waxaa ku jiro artificial light haddii aad doonaysid in YouTube muuqaaladaada ay aad u qurux badnaadaan ama haddii xataa aad banaanka wax ku duubaysid ay tahay galab ama haddii ay tahay maalin oo lagu jiro winterka oo ku anfici doonaan inta ku jirto halkan ila soo ilaa dhamaadka daxaysiinaysid in muuqaaladaada ay noqdaan kuwa professionalka u dhow ama mid kuwa ah professional ila soo ilaa dhamaad saujidin hadda hal xab waa xiray oo nalki ahaa gudihiisa waxa ka dhiman laambadooyinka ayaan ku xiraa afar laambadood aan ku xiraaya kadib inta kale ta ujeedin saddex xab laba kale ayaa dhiman labada kale oo kuwana baalahooda oo dalada camal ah nuucan ah saujidin lagu ku istaagay inuu leeyahay boorsaas ku qaadan lahayd waaye nalalkan ujeedin waxaan meesha ku jiran waxa waaye nalalkii waaye sababtoo ah saddex lagu dhuftay 4 nal oo mataqaana wuxuu wataa oo nooca warwareega oo Soomaalida aan isticmaalno oo kaleeto oo xamar aan ku isticmaali jirnay hadaa idin tuso noocaas waa kana saujidin inta ayuu ku jiraa marka hadda waxaan dhameystirayaa inta kala dhiman ayaan dhameystirayaa sababtoo muuqaalka uu idinku dheeraanayaa waxaan rabaa inaad ciyood aragtaan marka step walbo waa idin la socodsiin doonaa insha Allah hadda waxaan ku xiri doonaa nalalka inta ayaan ku xiri doonaa kana hore ayaan ka isticmaalayaa oo videoga inta duuba insha Allah okay hadda ujeedin nalalka waan ku xiray afar nal ayaa ku xiran muhiimadda uu leeyahay waxay tahay markuu nalkan daarmo
derbigan ayuu ku dhacayaa. derbigan markuu ku dhaca kadib reflection ayuu kugu soo bixinayaa oo nal nadiif ayaa ku imaanaya. Soomaalida qaarkood markay duubayaan youtuberada ama youtube-ka duubayaan haddii miraayad gadaashooda ay taalo indhahooda ayaa waxaa ka dhex arkaysaa nalka ring light duu yahay iyo nalalka caadiga u shidan indhahooda ayaa ka dhex arkaysaa indhihi ayaa wirqaya hadduu ookiyaalo wato qofka sidoo kaleeto. marka kan oo kaleeto wuxuu u wataa maro oo inta lagu dadaayo oo nalkan indhahaaga ma qabana haddii ookiyaalo wadatidna ookiyaalaha ma kaa qabanayo. marka nalkii oo soft box lahaa nalkii oo nadiif ayaa ku imaanayo indhaha ma kaa qabanayo ookiyaalaha daawada reflection ma sameynayo. marka intaas oo dhan mataqaanaa ayuu taraaya kan marka waa intusaa waa dhammaystiraa insha Allah. waa tahay sawjadiinba boxkii waa aan ku xiray maxaa la dhahayay softigii ama gadaal dambe baashi oo nalka markuu iftiinka kasoo baxo ama nalka inta kasoo baxaayo baashi iga difaacaysay. marka wuxuu noqon doonaa iftiinka inta kasoo baxay iftiin nadiif ah oo aan indhaha iga qabanaynin ama ookiyaalaha daan wato oo ookiyaalaha iga cawreynin haddii daaqad ama miraayad gadaasheeda ay taalana iftiinka iga horyaala aan la arkin. marka waad ujeediin hadda waa daari doonaa waana arkaysiin sida uu u shaqeynayo. waxaan filayaa waad aragtaan ayaan umaleynayaa nalka gudaha ayuu ka daaran yahay. boxkana ujeediin ama baashan cadda marada cadda ah waxay iga celinaysaa iftiinka tooska ah usoo baxayay ee wejiga iga dhacayay haddii kreen uu ku marsan yahay ama saliid uu ku marsan yahay oo kaleeto wejiga ama madaxa meesha koreeto oo sujuud laga sujuudo dadka way birqaysaa ama gabar ha aada ama wiil ha aada haddii make up soo marsatay iyo haddii make up soo marsaninba qofka hadduu dhidido oo kaleeto dhididkiisa waa uu muuqanayaa haddii aadan isticmaalaynin soft boxka. saa ujeediin nalkii boxka waa ku xiray kadibna softigii baalki oo iftiinka oo kasoo baxay iga celinayay ayaan kusii xiray. hadda hal xab ayaan isticmaalayaa midkaas kaleetana waxaa loogu talagalay kamerada inaad kor aad ugu xiratay ayaa loogu talagalay labadaas hadda ii daaran. marka waxaan sameyn doonaa in aan labada kale aan xiro kadibna aan idin tuso qaabka uu shaqeynayo. waxaan filayaa hadda mataqaanaa muuqaalka hooskeyga inaad gadaal ka arkaysaan. hooska inuu gadaal ka imaado waxaa keenayo sababtoo ah qaabka ay u yaalaan ma ahan qaabkii loogu talagalay. marka qaabka loo dhigi doonana insha Allah asigana waa idin sharxi doonaa haddii uu muuqaalkan uusan dheeraanin. ila socda ilaa labada kale aan ka sameyn doono insha Allah. waa tahay aqaarta hadda waxaan dhameeyay isku xirtaankii leerarkii. soo jeedin halkan waxaa ku yaalo boxkii soo jeedin box way gadaal daba magaceeda ku qoran waxaan ugu soo jiro waliba softiga ayaa ku sii xiran oo nalka haddii inta aad taaganahay indheyga lagama dhex arkayo kamerada in nal ama taqana isku duwaayo. kanna sidoo kaleeto asigana isku mid la waa isku si ay u sameeyeen kanna sidoo kaleeto isku si ay u sameeyeen intaba saddexdaba isku mid ay u organisan yihiin. marka waxaan idin tusayaa kan mar walba qofka markaas u taagan tahay kan kugu aadan waxaa waaye 90 degree ayuu ku jiraa midka kugu aadan. midka dhinacan kaa daran waxaa loogu talagalay inuu kugu jiro 45 xagal oo 45 ah macnaha xagal oo 45 degree ah ma garan qof walba soo yaqaan. kanna sidoo kale waxaa sameyn kartaa waa isku aadi kartaa ama xagga ayaa dhigi kartaa. laakiin midka dhex mar walba waxaad u isticmaali kartaa in aad ka keentid mar walba korkaaga ka keentid. waxaa loogu talagalay ama saas u isticmaali kartaa haddii kale kan ayaa inaad ku xirtid kor ka keeni kartaa oo saas oo kaleeto dalad ahaan kor ay kaaga imaanaya. marka nalna intuu kaaga aadan yahay midna xagal 45 kaaga aadan yahay midka kana kor ay kaaga imaanaya. markaas kadib darbiga gadaal dambe ma yeelanayo hoos ma yeelanayo. hadda maadaama oo mataqaanaa ishig meesha aan haysta zaid ay u yartahay darteeda nalalka isku dhow yihiin mana noqonayo in aan sida aan rabo aan u isticmaalo hadda waqtigan la joogo. gadaal dambe waxaad arkaysiin hoos yaris ayaa arkaysiin hoos badan arkaysiin sababtoo ah muhiimadda ugu weyn oo mataqaanaa saddexdan loo isticmaalo waxay tahay nalka gadaashaada dambe inuusan yeelanin wax hoos ah inuusan yeelanin. midda labaadna waxa ay tahay gabdhaha qaarkood make up ay marsadaan wiilasha qaarkoodna waa ay dhiibtaan saliid iyo waxyaaba camal. marka haddii nalka caadiga ah asigoo uu softi aan lahayn ama maradan uusan ku jirin hadda isticmaalaysid waxaa noqon doontaa inta waxaa laga arki doonaa briq ayaa yeeli doontaa ama wax oo inta ay kaa barasata ama wax laga dhigto jukaayo dhacdo kaleeto. gabdhahan sidoo kaleeto haddii make up ay marsadaan kaleeto waa laga arki doonaa ayagoo dhalaalaya meelaha saliid oo kaleeto. marka isticmaalaysa laakiin soft boxka wuxuu kaa jari doonaa iftiinkii indhahaaga ookiyaalo wadatid oo kaleeto. markii ookiyaalo markaa wadatid indhahaaga waxaa ku dhacayo iftiinkii oo nalka ayaa ku dhacayo kadib dadka kamerada ay ka arkayaan. haddii gadaashaada miraayad ay tahay ama dhale ay tahayna markuu ku dhaco nalkan markuu ku dhaco kadib waxaa laga arkayaa nalka ayaa laga arkaya laakiin kuwan markaa isticmaalaysa lagama arkayo. marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay nalalkan oo dhan waxay ku siinayaan nal caadi ah oo sidii kii oo mataqaanaa qoraxda oo kaleeto ama cadceed oo kaleeto. sababtoo ah cadceed haddii daaqada ay ku furan tahay guriga inay soo galaysaa kadibna hooskaaga oo dhimanayo ama hooskaaga lama arkayo. marka waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysan doontaan ama aad soo galan doontaan haddii aad daawataan muuqaalkan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.